assalaamu calaykum. waxaa jiro howlo waqti badan aanan kaaga baahnayn qabashadooda laakiin saamayn weyn ku leh dhinaca horumarinta noloshaada iyo naftaada. waxaa la yidhi wakhtigan aan ku jirno, zamankan aan ku jirno, ha u shaqayn si adag oo xoog badan ee u shaqee si caqliyaysan. taas waxay ula jeedaan in fursado badan ay jiraan wakhtigan haddii aan maskaxdeenna adeegsanno. halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 5 qodob oo haddaad samayso aad ka dhaxlaysa shakila'aan horumar wax badanna ka beddeli doono noloshaada. qodobka koowaad, inta aadan seexanin ka hor. mid ka mid a ragga tijaabooyinkan sameeyey ayaa leh, waxaan ku takhasusay iibinta ama suuqgeynta marketinka. hawsheedu waxay ahayd arrinkaas, in aan wax suuq geeyo, wax iibiyo, wax la soo saaray aan sii iibgeeyo. wuxuu leeyahay haddaba, markaan shaqadayda rasmiga ka tago oo aan dhammeeyo oo aan guriga aado, wax yar nastana dadkuna kala seexdaan, ayaa nadka ka baran jiray ayuu yidhi dhisayn-garaynta, waxa naqshadinta sida Photoshop iyo waxyaabaha la xiriira, waxyaabaha noocaas oo kale. anigaana isbari jiray ayuu leeyahay. wuxuu raaciyey, markaan bartay arrinkaas kadib, haddeertaan waqti xaadirkan waxaan madax u ahay koox dhisayn-gareenyaal, yacni dadka wax dhisayn-gareeyo. wuxuu leeyahay, waxa aad qabanaysa markaad hawshaada rasmiga ah dhammayso waa shay aad iyo aad muhiim u ah. haddii aad ku ekaato keliya meesha aad ka shaqayso oo aad yacni shaqo 8 saac la qabanayo aad noloshaado dhan ku xirto, aad soo kacdo berrina aad aaddo, wax kalena aadan kordhisanin, wax aad faa'iidaysa ma laha. noloshaadana waxay ku jirtaa khatar. zamankan aan ku jirno, wakhtigan aan ku jirno, waa wakhtiga wax isbaridda. qofku wuxuu haystaa fursado aad u badan in uu wax isbaro asagoonan iskoole jaamacad aadin. waa waqti aad u sahlan inaad wax badan barato. qodobka labaad, akhrinta. wax badan ayaan ka soo hadalnay wax akhrinta. qoraalka maqaalkan wuxuu leeyahay, waxaan aqaanaa macallin jaamacadeed madow Maraykana, kana soo jeedo qoys saboola. waana qofkii ugu horreeyey ee ehelkooda jaamacad ka galo. macallinkan jagooyin kala duwan oo muhiima ayuu jaamacadda ka qabtay ayuu leeyahay. markaan weydiiyey guusha ugu weyn ee uu xaqiijiyey noloshiisa, wuxuu igu jawaabay ayuu yidhi, wax akhrintu iga soo kooba. waxa ugu fiican ee aan sameeyey halkaasna i gaarsiiyey waa inaan wax akhrin jiray. wax akhrinta ayuu ku soo koobay. qodobka saddexaad, wax uun qabo, wax uun xaqiiji. qabashada hawl waxaan ula jeedaa dabiqitaanka wax aad baratay. waa mid naftaada dareen guulgelinayo. haddii aad netka ka barato tusaale ahaan cilmi mucayana, isku day in aad dabaqdo, in waxaas aad baratay aad u beddesho wax la taaban karo. waxaa kaloo soo gelaya qabashada wax uun in aad dabaqdo jadwal tusaale ahaan aad dejisay oo kale, ama qorsho, in caado xun aad iska joojiso, in aad samaysato caado wanaagsan sida wax akhrinta, habeenkii inaad xilli hore seexata, subaxdii inaad xilli hore soo kacdo, noloshaada inaad iska jiifka iyo nolosha yacni caajiska aad ka baxdo, in aad dhaqaaqdo, cajaladda aad dhaqaajiso. taas ayaa ka mid ah wax uun inaad qabato. qodobka afaraad, xiriir guud. la xiriir dadka, gaar ahaan kuwa kaa agdhow, adigoo ka bilaabay xayndaabka kugu hareeraysan sida qaraabada, saaxiibbada, deriska, dadka magaalada. tusaale, haddii aad nin khabiirah u tagto oo aad ka dalbata naseexa inuu ku siiyo ku aadan bilaabidda ganacsi, wuxuu kugu jawaabi, marka hore samaysa shabakad xiriir guuda. dad kala duwan baro, xiriir samayso, waxaa kuu furmaaya albaabo fara badan. ma ii sheegi kartaa qof dad badan, kuwa muhiimad sarahaya iyo kuwa caadi xiriir la leh oo aanan waxyaabo badan xaqiijinin? xiriirka wanaagsan ee xikmadda iyo caqliga ku dhisan waa furaha albaabo badan. qodobka shanaad, noloshaada wax ka beddel. waqti dheer ayaad haysataa kadib markaad ka soo baxdo howlahaada rasmiga sida waxbarashada nidaamiga, shaqada. haddaba wakhtigaas ka faa'iidayso adigoo qabanaya wax uun. xitaa haddaad tahay hooyo Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed oo guriga joogto, fursadna aan u helin in ay wax barato, aanan shaqaynin, xitaa subaxdii oo kale, yacni 3 saaco subaxnimo, 4 saaco subaxnimo, ama 9 ama 10 subaxnimo subaxdii ah, waxaad awooddaa markay dadka ama kala maqan yihiin ama iskoolada ciyaalka weli ayna ka imaanin, in wax uun aad faa'iidaysato, in aad quraan akhriso,
in aad wax kala barato in aad wax aad qabato aadan iska seexanin aadan sugin inaad qada kariso naftaada ayaa wax walba ka muhiimsan walaal ku dadaal wax isbaridda xitaa haddii aad hal saac keliya arrinkaas samaynayso muddo sanad waxaad arkaysaa in wax weyn aad baratay wax weynna aad xaqiijisay rasuulka sala allahu calay wasalam wuxuu aad u jeclaa acmaasha kuwa daa'imka ee aanan istaagaynin tusaale haddii aad 24 saac bog akhriso qur'aanka ka mida si xiriiri oo aanan joogsi lahayna maalin walba waxay ka fiican tahay inaad maalin qur'aanka dhan dhammayso haddana aad joogto isbuuc maalin kale aad akhriso waxaan ula jeedaa 5 daqiiqaba allah ka dhigay haddii aad wax samayso maalintii yacni waxaad arkaysaa muddo kadib wixii oo wax weyn noqday waxaa la dhahaa buurtaas intaas leeg waxay ka samaysan tahay xaani lagu daray ama dhagax yar oo dhagax yar lagu daray marka weligaa ha dhayalsan waxa aad qabanaysa si kastay u yar yihiin intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaaga maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu